Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kanaalka hoyga bulshada kusoo dhawaada mowduuceena caawa dadka cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo sar mowduucana sii share gare oo saaxiibadaada kale sii gaarsii hadaad mowduuca ka hesho fadlan like noogu sharaf gabadha uusan ninkeedu ilaabi karin waa tuma si walba uu gabdho badan ula sheekaysto ama uu xiriir ula sameeyo ama xitaa gabdho badan hadduu guursado ninka ragga waxaa jirta gabadh uusan weligiis ilaaweyn oo aan marnaba niyadiisa ka go'ayn xitaa hadduu xiriirkooda dhammaado ayna kala tagaan mar walba waxay ku jirtaa qalbigiisa mar walba wuxuu ku riyoodaa inay dib ugu soo laabato si uu xafido oo aanay mar labaad aysan uga tegin ama aysan ka fogaan badanaa ragga ma dareemaan qiimaha gabadhaasi ilaayo marka ay ka tagta mooye ayna dhahaan ragga qaar heblaayo gabadh wanaagsan ay ahayd weligay imay soo marin gabadh ka wanaagsan haddaba waa tee gabadhaasi uusan marnaba ilaabi karin ninka ragga ah waxaan idinla wadaagaynaa 8 qodob aan dul istaagayno gabdhaha wanaagsan ee ninkeedu aan ilaaweyn marnaba haddaad gabadh tahay kaalayo maantana raac oo baro 8 qodob oo mid u kala qaadi doono kusoo dhawow mowduuceeno dhammaystiran fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا haddaan bilowna gabdhahaasi uusan marnaba ilaawi karin ninkeedu waa qodobada hoos ku xusan qodobka koowaad waa midda qiimaysa raganimadiisa una muujisa ixtiraam iyo qadarin lambarka labaad waa midda u muujisa ixtiraam isla markaasna dareensiisa koolkoolisa sida ubadkeeda oo kale qodobka saddexaad waa midda u samirta uguna dulqaadata dhib iyo dheefba lambarka afraad waa midda uu dareemayo farxad marka ay la hadlayso isla markaasna codkeeda uu ku ilaawo culays kastoo markaasi saaran lambarka shanaad waa midda la dareenta murugadiisa isagoon hadlin kuna dadaasha inay wax kala qabato murugadiisa isaga haysta lambarka lixaad ayaanu maranaay waa midda caqligiisa saaxiibka u ah ee taqaana sida uula dhaqanto ninkeeda kuna dhiirigelisa inuu horumar iyo guulo la taaban karo gaara lambarka toddobaad ayaanu maranaa oo ah gabagabada iyo gunaanadka inkastoo qodob inoo hadhsan yahay oo kii 8aad uu yahay haddaba qodobka toddobaad ayaa wuxuu tilmaamayaa in uu qalbigeedu yahay nadiif isla markaasna aan raaraacin qaladaadka ninkeeda hore uga dhacay lambarkii ugu dambeeyey ayaanu soo gaarnay maxaadse u malaynaysaa inuu lambarkaasi yahay waxaan ku siinayaa gabadha mowduucan daawanaysaay 45 sekin inaad bal kaga jawaabto qodobkaas 8aad maxaad u malayn lahayd waynoo bilaabatay macquul ah inaad waxyaabo badan ku fakartay balse qodobka ayaanu dul istaaganaa waa lambarka 8aad waa midda taqaan waxa uu ninkeedu jecel yahay iyo waxa uu neceb yahay mar walbana ka feejignaata wuxuu xun sababi kara isku dhac qoys daba qodobadan aan kula wadaagay meel ku gunad waana huba inaad 8 qodob ay yihiin xaqiiqo balse adigu qodobkee ayaad ka dooran lahayd ninkayga kula dhaqmaa uunan igu ilaawi karin qaar ayaa odhan doona qaybta cuntada ama qaybta dharka balse adaa doorashada iskale ee ninkaagu wuxuu kugu ilaaweyn qaybta hoose faallada commentiga noogu reeb intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa saaxiibayaal ee maaca ustaad ayaa soo diyaariyey mowduucan anoo cabduuli nadaaraan oo soo jeedinayay sidaas iyo fii amaanillah